السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر أو سيدي عادة إنه هيد ما أنت نهلك كان يدي كسوق بدين دون برنامج جديد ني تحنها ها كسب سنة الرمها نقن كسوقان تا يافك الصومالية وحين كسي سعند دونا قيبتا حكمة بل ما أنت وحين خير نصن دونا قيبتا مهمها أما وحين كسي سعند دونا قيبتا حكمة إيا مهمها إيه إسكود حجرا مهمها كوباد إيه عن دي هيا وحي ليدا هي صدح فردقا يكون أكسنتا هي صدح فردقا أي يكون أكسنتا هي صدح فردقا يكون أكسنتا هي صدح بقى فردقا كون أكسن هورا وحي نوصو شيغني سعود كأيني صدح كون أكسنتا هي وحي نو هدنا لينا هي صدحنا فردقا يكون أكسنتا هو دبكو فردقو كون أكسن يهي dumarkuna fadhigay ku wanaagsan yihiin duunyada ama dhaqashada xooluhuna fadhigay ku wanaagsan tahay dabku fadhigu ku wanaagsan yahay hadduu dab hulaaqo uun allaba uu qaribi doonaayo uu baabi'in doonaa dad iyo duunyada haddii uu dabku hulaaqo wuxuu wada gaari doonaa meel kasta ayuu gaari doonaa deegaanka oo dhan buu gaari doonaa guryuhu wada gubi doonaa dad iyo xoolo midna bixin maayo marka dabku fadhigu ku wanaagsan yahay inuu socdo ama in uu hulaaqo kuma wanaagsana dumarkuna fadhigay ku wanaagsan yihiin baa la yiri dumarku hadday noqdaan qaar wareegayo oo socdo oo aan fadhiisanaynin naanays ceeb iyo arrimo aan la mahadinin baa had iyo jeer laga dhaxlaa arrintaasi waa arrin loo baahan yahay dumarku inay u dhuwiyo dhaayaba yeeshaan waa arrin loo baahan yahay inay dumarku ka feejignaadaan dumarku waxay ku wanaagsan yihiin ama ha yaraato ama ha weynaatee fadhigay ku wanaagsan yihiin muraad muhiima mooye waa inaanay si dhaya loo fududaanay u bixin dumarka iyo dabkuba fadhigay ku wanaagsan yihiin sidaasay marwo ku yihiin sidaasay sharaf iyo maamuus iyo qiimaba ku leeyihiin laakiin hadday noqdaan qaar soconaya oo aan istaagayn oo gobolba gobol u dhiibayo waxa weeye ma dhaqanka Soomaaliga dumarka noocaasi ma wanaagsana baa la yiri laakiin waxaynu ku dari karnaa oo aynu oran karnaa dee waqtigan imika jooga ama casrigan haddii gabadhu ay tahay gabadh ganacsata oo maxaan ku raahdaayay kolla Soomaaliya tagaysa kolla Dubai tagaysa kolla China tagaysa kolla Turkiga tagaysa balka war waxay ila tahay dee taasi waxba isbedelayo ilbaxnimadii iyo xadaaradii iyo noloshii wax badan baa iska bedelo dumarkii mar hadday shaqaynayaan waxaan filayaa dee arrinkaasi dee inaanu ka hadal lahayn baan filayaa laakiin inagu dhaqankeenii hore ee Soomaalida ayuun baynu ka hadlaynaayo waxa la yiri saddexdaas ku wanaagsan fadhiga dabka iyo dumarka iyo waxa ku wanaagsan fadhiga oo kale duunyada xoolaha la dhaqayo waadiga arkay xoolaha seeraha lagu xiro ee meel la fariisiyo halka lagu siiyo baadkiyo biyahooda xoolahaasi way ka cad iyo caanaba badan yihiin xoolaha kale ee socdo ee wareega ee kolba meel loo raro way ka tayo iyo tiraba fiican yihiin way ka cad iyo caanaba badan yihiin marka saddexdaasina fadhigay ku wanaagsan yihiin baa la yiri waxa kale oo la yiri saddex faankoodu waa been saddex faankoodu waa been bakhaylka faankiisu waa been baalida faankeedu waa been beenaalahana faankiisu waa been saddexdaa nin faankoodu ama saddexdaa qof faankoodu waa been bakhayl faankiisu waa been oo hadduu bakhayl faano dee waaba bakhayle muxuu ku faani weligii cid buu marti soorin weligii cid koob shaaha umuu shubin martida wuu ka baxsadaa haddii martii soo timaado reerka kadinka kale ka baxa marka isagu faan ma laha gabadha baalidiina waa gabadha basarida ahoo iyaduna waxay ku faanto maba laha oo waxa weeye kolay milixda ku badiso iyo kolay basbaaska ku kiisho iyo kolay ka yarayso iyo kolay wixii oo qeyrin soo dhigta weey ama aan nadiif ah baahay beenaaluhuna dee isagu waaba beenaala oo qowl xalaalaba ma yaqaano oo kaasi waxa la yiraahdo wax laga rumaysto lagu aaminaba haba yaraatee ma laha marka saddexdaa faankoodu waa been baa la yiri waxa kale oo la yiri saddex dawo ma laha saddex daawo loo waa saddex daawo loo waa doqoniimo daawo loo waa da'dana daawo loo waa dumar deyntoodna daawo loo waa saddexdaa arrimood dawo alla dawo cid u haysaa bal dhakhtarka daweynaya inoo soo sheega qofkii hayo saddexdaa arrimood dawo u hayo haddaad og tahay dhakhtar lagu daweeyo ama Yurub ha ku yaalla ama Ameerika ha ku yaalla ama Afrika iyo Aasiya ha ku yaalle bal soo sheeg ma jirto
qof doqono oo la yidhi waa la soo daweeyo hebelkii doqonka ahaa doqonnimadii waa laga soo daweeye ma hayno qof da'dii laga soo daweeyo la yidhi 9 jir buu ahaayo 20 jir baa laga soo dhigayna ma hayno waxa weeye allahumma salli calaa maxamed doqonniima dawo male da'duna dawo male dumar dayntoodna dawo male dumar dayntoodna dawo male hoo raggu waxa la yidhi ilaa intuu xadhi ka tallaabsanayo hadduu 9 gaadhiyo hadduu 100 gaadhaba isagoo dhul u dhaca mooyaane ninku ma daayo dumar baa la yidhiyo waa jecel yahay ama waa doonayaa uun gabadh ula dhaqmo waayahay intaa haddaan halkaa kaga gudbo bal waxaan idinku soo dhaweynayaa qayb kale oo iyaduna ka mid ah xigmadda waxaa la yidhi carab saddex u daa carab saddex u daa gabadh qurux badan gaadhi qurux badan iyo guri qurux badan carab saddexdaa arrimood bay ahmiyadda saaraan bal u fiirsa imika waddamada carabta oo dhan kuwa batrool kale ee maxaanku dhahdaye ilaahay uu siiyey wixii qaaliga ahaa bal u fiirso waddan warshadalo oo wax soo saarayaa ma jiro dhammaantood waxay ka iibsadaan baabuurtay isticmaalayaan iyo qalabkay wax ku dhisanayaan iyo mashiinaday adeegsanayaan oo dhan waxay ka iibsadaan waddamada reer galbeedka ayay ka iibsadaan sidaynu wada ognahay waayahay markaa carab saddex u daa baa la yidhi gabadh qurux badan guri qurux badan iyo gaadhi qurux badan intaasunbay bimacnaa ay yihiin dad ku mashquula oo ka shaqeeya baa la leeyahay waxa kale oo la yidhi 4 ka digtoonow ama 4 iska jir ninka aamusane la yidhaahda maalintuu hadlo iska jir ninka had iyo jeer aamusani maalintuu hadlo xigmad buu ku hadlaa hadal murti iyo macnalo buu ku hadlaa hadal dhaxalgala oo taariikhda galuu ku hadlaa ninkaa iska jir hadalkiisa ha ka hadlin waay waxa kaloo iska jirtaa madi dagaalkii nin madiya oo kalidiya oo aan rag kale la dhalanin dagaalkiisa iska ilaali madigu dagaalka kuma degdego laakiin haddii uu rag ku dayn waayo waxa weeye wuu dagaalamayaa seeftuu qaadanaya waxba reebi maayo madi dagaalkiina iska ilaali waa cidiya ku dagaalan waayo waa nin madiyaho wax ka dambeeya iyo cid isgarab taagaysa midna ma oga mar hadduu seefta galka kala baxo waxa weeye cidna badbaadin maayo madi dagaalkiina iska jir waxa kalood iska jirtaa ninka had iyo jeer haddii uu khaldamo khaladkiisiina dib u saxay nin khaldamay ama nin lagu yaqaanay luqluqa mara had iyo jeer oo markii dambe noqday nin saxa ninkaana iska ilaali khaladkiisii buu saxay waa waayo arag khibrad iyo waayo aragnimo maskaxdiisa ka buuxda wixii soo maray buu duruus ka bartay waqtiga iyo waayaha wax baray ninkaa aad iyo aad isaga ilaali isagana markaa 4 taana iska jir baa lagu yiri waxa kale oo la yiri gabadh baa waxay weydiisay baa la yiri nin warniyahow waxa tahay nin ilaahay uu isugu daray ilaahay wuxuu isugu kaa daray cilmigii iyo caqligii iyo cuudkiiba rabbi waa isugu kaa daray cilmi buu ilaahay ku siiyo aqoon baad baratay caqli buu ilaahay ku siiyo maskax fiican baad leedahay cuudna rabbi waa ku siiyo xooluu ilaahay kaa dhargiyo dhaqaalahaagu waa heer sare bal waxaad iiga warantaabay ku tiri gabadhii 3 dumaraad qabtaaye sababta aad 3dan dumara u guursatay bal niyahow iiga sheekee dabeetana ninkii wuxuu ku yidhi gabadha koobaad ee aan guursaday ee min weynada anigaa doortay oo naftaydaa jamatay buu yidhi taasoo anaa jeclaaday kadib naftaydaan ku raali geliyey buu yidhi oo waa gabadhii aan anigu xushay ee aan nolosha la wadaagay gabadha labaad ee minyarada ah aabbahay baan ku raali geliyo waa inadeertay oo waa dhiigaygii iyo dhalashadaydii buu yidhiyo taana aabbahay baan ku raali geliyey gabadha saddexaad ee maagmaagatada ah waa inaabtiday buu yidhiyo mar haddaan aabbahay taa hore ku raali geliyey dee waxaan isiri hooyadaana cidlaha kaga tegine inaabtiday oo edaday abtigay dhalay ayaan guursaday buu yidhi si aan iyadana hooyaday ugu raali geliyo oo aan maagmaagata ka dhigay 3 dumara saasaan ku guursaday buu yidhi dabeetana gabadhii waxay ku tidhi dee maadaama aad 3 dumara sidaa ku guursatay mar naftaadaad raali gelisay oo waa min weynadii marna waxaad raali gelisay aabbahaayoo waa min yaradii
marna waxaad raalli gelisay hooyadaayo waa maagmaagatadii bal haddaba marka afraad bay tiri ilaahay raalli geliyo anigana dar ilaahay ii guurso sidaasuu iyadana tii afraad murdisada ahayd uu kaga dhigay sidaasay afartii dumar ahaaba ay ninkaa ay ugu buuxsameen waa xigmad weeye tani mahmaah ma aha waa xigmad waxa kale oo la yidhi waxaan filayaa waqtigiibaa inaga gaadhay aad iyo aad baan uga xumahay aad baad u wada mahadsantihiin dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inoo iyo kulan dambe oo xiise leh barnaamijka ku xiga